wiilkan ayaa markii ugu horeysay ee uu ugaarsi tago waxa uu la kulmay boqorka libaaxyada Afrika. Iskii hore waxa uu u maleeyay in libaaxu si toos ah ugu soo boodi doono, laakiin libaaxii waxa uu bilaabay inuu hareerahooda ku wareego isaga oo qiimeynaya. Markaas ayuu wiilkii si geesinimo leh qorigiisii dhulka u dhigay. Waxa uu isku dayay inuu ficil ahaan ugu muujiyo libaaxa inuusan wax dhibaato ah u wadin. Waxa la yaab noqotay in wejigii libaaxa ee cadhada lahaa uu si tartiib ah u degay oo dhawaqa rasaas ayaa si lama filaan ah u jebisay xasiloonidii jirtay. Qofka rasaasta riday waxa uu ahaa wiilka aabihiis. Libaaxii oo markii hore deganaa ayaa markiiba cadhooday. Isaga oo cadhaysan ayuu si bahalnimo ah ugu soo booday wiilkii oo uu bilaabay inuu jidhkiisa kala jeexjeexo. Inkasta oo aabihii oo meel fog joogay uu isku dayay inuu ka celiyo, ugu dambeyntii wiilkii oo dhimasho qarka u saarnaa ayaa libaaxii afka ku qaatay oo la tegay. Markii uu u maleeyay inuu dhintay oo aan badbaado jirin, ayaa si lama filaan ah dhibic dhiig ah oo libaaxa ka timid waxa ay ku dhacday dhaawaca wiilka. Dhiigii ayaa la falgalay hiddo-sidayaashiisa genes, taas oo sababtay isbeddel aan la rumaysan karin. Qaab dhismeedka jidhkiisa iyo shaqadiisuba waxa ay isku beddeleen ilbidhiqsiyo gudahood. Ugu dambeyntii si mucjiso ah ayuu uga badbaaday geeridii, laakiin markii uu guriga ku soo noqday waxa uu la kulmay canaan adag oo aabihiis uga timid. Aabihiis oo ahaa nin caan ka ah dunida dambiilayaasha kuma qancin falkii wiilkiisa ee muujinayay fulaynimada. Waxa uu had iyo jeer wiilkiisa barayay naxariis darrada, isaga oo aaminsanaa in u naxariisashada cadowga ay tahay naxariis darro naftaada loo geystay. Si kastaba ha ahaatee, markii uu wiilkii arkay aabihiis oo soo ugaarsaday libaaxii halyeyga ahaa, madaxiisana ka dhigay calaamad uu derbiga ku xardhay, ma uusan awoodin inuu xakameeyo cadhadiisii. Waxa uu ku qayliyey isaga ayaa ahayd inuu ku dilo. Aabihiis ayaa weydiiyey maxaa kaa qaldan. Wiilkii oo cadhaysan ayaa isku xidhay qolkiisa. Isaga oo ka niyad jabsan qoyskiisa ayuu go'aansaday inuu guriga ka baxsado. Si aamusnaan ah ayuu u urursaday baasaboorkiisii iyo kaardaso. Laakiin markii uu si taxadar leh ugu socday saqafka sare, ayaa lebankii uu ku taagnaa si lama filaan ah u jabay. Inkasta oo uu filayay inuu si xun dhulka ugu dhigi doono, haddana si fudud ayuu u degay. Wiilkii ayaa la yaabay wixii dhacay, laakiin ma uusan haysan waqti uu ku fikiro. Waxa uu u safray dalkii hooyadiis oo ahaa dhul daaqsimeed ballaaran oo ku yaal bariga fog ee Ruushka. Isaga oo ku raaxaysanaya quruxda dabeecadda ayuu si lama filaan ah maqlay dhawaq cabsi leh. Wiilkii ayaa si argagax leh gadaashiisa u eegay. Waxa uu arkay boodh cirka isku shareeray iyo koox dibi duur ah oo si xawli ah ugu soo socota. Xitaa libaax xooggan ayaa ka fogaan lahaa kooxdan oo kale. Dhulkan ballaaran ma jirin meel uu ku dhuunto, sidaa darteed waxa uu isku duubay oo uu qadarkiisa sugay. Laakiin waxa la yaab noqotay in dibidii aysan ku istaagin, balse ay labadiisa dhinac ka mareen. Markii uu soo miyirsaday ayuu ogaaday in hogaamiyaha dibidu uu jidhkiisa ku ilaalinayay. Markii ay dhammaan dibidii ka tageen ayuu dibigii hogaamiyaha ahaa si nabad ah uga tegey. Waqtigaas ayuu wiilkii ogaaday inuusan keliya lahayn awood uu kula xidhiidho duurjoogta, balse jidhkiisuna uu ka xoog badnaa dadka caadiga ah. Marka uu xoog yar isticmaalo, leebkiisu waxa uu gaadhi karaa boqolaal mitir. Xawaarihiisuna waxa uu la mid ahaa kan haramcadka, isaga oo si degdeg ah u qaban kara deero ordayso. Awooddiisa boodboodkuna waxa ay ahayd mid la yaab leh, isaga oo hal boodo cirka u geli kara. Maqalkiisuna aad ayuu u xoogaystay, xitaa waxa uu si cad u kala saari karayay tirada dhibcaha biyaha ee dooxada ku dhacaya. Si lama filaan ah, dhawaqa rasaas ayaa dooxada ka yeedhay. Si degdeg ah ayuu u fuulay geed dhererkiisu 100 mitir yahay. Indhihiisa oo uu xoogaa mirdhiyey ayuu arkay laba ugaarsato sharci darro ah oo kumanaan mayl u jira. Wiilkii ayaa si degdeg ah ugu orday si uu u joojiyo, laakiin nasiib darro wax walba way dhamaadeen. Isaga oo arkaya tobanaan dibi duur ah oo dhulka yaal ayaa cadho weyni ka buuxisay. Laakiin intii uusan waxba samayn ayaa ugaarsatadii si kedis ah ugu yimaadeen. Waxa ay ku amreen inuu si degdeg ah uga tago meesha. Hadalkaas ayaa kiciyey dabeecaddiisii bahalnimada ahayd ee ku dhex qarsoonay. Wiilkii ayaa mindi dhulka ka qaatay, sida bahal oo kale ayuu labadoodiiba dhulka ku tuuray. Labadii ugaarsato ee sharci darrada ahaa wax awood ah uma yeelan inay iska celiyaan. Waxa uu eegay kooxdii kale ee ugaarsatada ee meel fog joogtay, kadibna waxa uu dib u eegay dibidii dhintay. Wiilkii ayaa go'aan adag gaadhay inuu u aargudo xayawaanadan. Hal 6 sano kadib, wiilkii waxa uu noqday halyey ka tirsan dunida dilaayada, isaga oo ah mid ka mid ah dilaayada ugu waaweyn Marvel. Magaciisa oo keliya ayaa cabsi gelin jiray dadka. Cid kasta oo magaceedu ku soo baxo liiska Kraven kama badbaadi jirin in la ugaarsado. Si uu u helo bartilmaameedkiisa, waxa uu iska dhigay dambiile si uu xabsiga u galo. Laakiin markii uu qolkii xabsiga galay, wuu naxay. Waxa muuqatay in qofka la jooga uu yahay nin adag. Si uu uga fogaado dhibaato, Kraven ayaa la galay sharad. Waxa uu u sheegay inuu 3 maalmood gudahood kaga bixi doono xabsiga haddii uu 1 daqiiqo ku darsadana uu isagu iska leeyahay. Ninkii la joogay oo yaaban ayaa si jees ah u dhoola cadeeyay. Maalintii labaad, xilligii nasashada, 2 nin oo iska xoog weyn ayaa u yimid, iyaga oo sheegay in wax kasta oo meeshan yaal uu leeyahay madaxdoodu. Waxa ay isku dayeen inay cashar u dhigaan ninka cusub, laakiin nasiib darro waxa ay la kulmeen ninka adag. Kraven oo xoog yar isticmaalay ayaa si fudud labadoodiiba kor ugu qaaday. Nasiib wanaag, ilaaladii ayaa si degdeg ah u soo gaadhay, taas oo ka hortagtay in xaaladdu faraha ka baxdo. Laakiin markii dambe waxaa loo kaxeeyey qolkii madaxa xabsiga. Si kastaba ha ahaatee, Kraven ma uusan walwalin. Si fiican ayuu u garanayay qofka uu la kulmayo, waayo taasi waxay ahayd sababtii uu xabsiga u soo galay. Markii ay feejignaantoodii yaraatay, Kraven ayaa si lama filaan ah u weeraray. Labadii nin ee la socday ma aysan helin fursad ay isaga celiyaan oo markiiba way itaalgabeen. Madaxii xabsiga ayaa gartay in khatari soo food saartay, laakiin waqtigiisii wuu dhamaaday. Dhawaqii weynaa ayaa soo jiitay ilaaladii, laakiin si degdeg ah ayuu Kraven dabaqa hoose ugu tuuray. Sida shabeelka oo kale ayuu derbiga ku booday, kadibna waxa uu xoog ku furay marinkii baxsadka. Xabsi oo dhan ayaa waxa ka yeedhay dhawaqa digniinta, laakiin xawaaraha Kraven ayaa ahaa mid aad u dheereeya. Hubkuna waxba kama tari karin. Kraven waxa uu 1 daqiiqo gudahood kaga baxsaday xabsiga, laakiin waxa uu la kulmay khatar aan hore loo arag. Duufaan weyn ayaa si lama filaan ah u liqday. Duufaanta barafka ah ee aan waxba laga arkayn dhexdeeda, Kraven ayaa si degdeg ah jihadii uga luntay. Isla markaas ayuu si lama filaan ah dareemay awood dil ah oo weyn. Yey baraf ah ayaa hortiisa ka soo muuqday, laakiin markii Kraven uu isticmaalay awooddiisa dareenka, yeygii ayaa si lama filaan ah u degay oo u hoggaansamay. Isaga oo kaashanaya yeyga, Kraven waxa uu si guul leh ula kulmay dadkii sugayay. Kadib waxa uu iska masaxay tusaalooyinkii jidhkiisa. Markii ay ciidamadii yimaadeen, waxa ay heleen oo keliya mayd wejigiisa yeygu cunay. Kadib markii uu hawshiisii dhamaystay, Kraven waxa uu ku soo
noqday dhul daaqsimeedkii. Waxa uu arkay koox ugaarsato sharci darro ah oo dilaysa dibiduur. Waxa uu istaagay wadadii ay mari lahaayeen isaga oo sugayay in muddo ah. Kooxdan yar ayaa isku dayday inay awood ku muquuniyaan, laakiin aad ayay u dhayalsadeen awoodiisa. Kraven oo u eg bahal cadhaysan ayaa si degdeg ah u laayay dhammaan cadowgii gaadhiga saarnaa. Hogaamiyihii oo argagaxsan ayaa isku dayay inuu baxsado, laakiin Kraven ma uusan damacsanayn inuu cafiyo. Si aamusnaan ah ayuu u xafiday lambarka gaadhiga. Hogaamiyihii baxsaday ayaa u tegay madaxiisii si uu warbixin u siiyo, laakiin si lama filaan ah ayaa qaanso loogu soo riday. Kraven ayaa magaciisa ka masaxay liiska. Markii uu baxayay xitaa albaabka ayuu si degan u xidhay, isaga oo adeegsanaya urintiisa ayuu helay haweeney. Waxa uu tusay kaarkii uu sanado badan haystay. Calypso ayaa markaas ogaatay inuu yahay wiilkii yaraa ee maalintaas. Waxaa soo baxday in markii Kraven uu libaaxa la tegay, Calypso iyo waalidkeed ay meel u dhow ku dalxiisayeen. Kaarka ay haysatay waxa ay siisay ayeedeed ka hor inta aysan safrin, iyada oo u sheegtay inuu ka ilaalin doono dhibaatada. Intaa waxaa dheer waxa ay siisay dawadii dahsooneyd ee qoyskoodu soo dhaxlayeen. Waxaa laga yaabaa inay ahayd qadar. Calypso ayaa heshay Kraven oo libaaxu la tegay. Libaaxu ma uusan sii dhibin wiilkii yaraa, balse markii uu arkay Calypso waxa uu u muuqday mid caawimaad weydiisanaya. Gabadhii ayaa siisay dawadii dahsooneyd. Intii aysan bixin waxa ay siisay kaarkii, iyada oo rajaynaysa inuu nasiib u keeno. Laakiin inkasta oo dhakhaatiirtu ay si adag isugu dayeen inay badbaadiyaan dhaawacyadiisii oo aad u darnaa awgeed, Kraven ayaa ugu dambayntii la sheegay inuu dhintay. Laakiin markii ay dhakhaatiirtu isku diyaarinayeen inay qalabka ka furaan, si mucjiso ah ayuu u soo toosay. Si uu u fahmo waxa ku dhacay, waxa uu hal 6 sano raadinayay qofkii badbaadiyey, ugu dambayntiina waxa uu helay urteedii. Maalmahan Calypso waa qareen caan ah oo London joogta, laakiin macalinkeedii ayaa lagu dhex dilay kiis ay wakiil ka ahayd. Kraven ayaa u sheegay inuu u aaray, dilahana uu ahaa ninkii xumaa ee xabsiga ku jiray. Calypso oo shaki ka qabta ayaa guriga ku noqotay, waxa ayna hubisay in madaxii xabsigu dhintay. Mar kale ayay heshay Kraven. Inkasta oo ninkaasi uu mudnaa in la dilo, Calypso ma aysan ogolayn falkiisa. Intaa waxaa dheer, Kraven waxa uu u sameeyey oo kaliya si uu abaalkeedii u gudo. Laakiin labadooduba ma ogeyn in warkii dhimashada madaxa xabsigu uu si degdeg ah u gaadhay Rhino. Waxa uu ahaa nin yar oo u shaqayn jiray aabihii Kraven, laakiin hadda hamigiisu aad ayuu u weynaa. Si uu awoodiisa u balaadhiyo, waxa uu la kulmay raggii awoodda lahaa ee madaxii xabsiga, isagoo rajaynayay inay mustaqbalka u shaqeeyaan. Laakiin ninkan indha gashiga leh ee edebta badan way adkayd in lagu xidho naanaysta Rhino si uu u cabsi geliyo. Waxa uu furay tuubadii ku xidhnayd boorsadiisa. Gacantiisa ayaa bilowday inay isbedesho. Raggii yaryaraa ayaa si degdeg ah rasaas u furay. Rhino ayaa dhulka ku dhacay, laakiin ma uusan dhiman. Waxa uu boodka iska jafay oo istaagay. Kadibna waxa uu iska furay shaadhkiisii oo uu ka soo saaray rasaastii ku dhacday maqaarkiisa adkaaday. Markii uu dib ugu xidhay tuubadii, maqaarkiisii ayaa ku soo noqday sidii hore. Markay arkeen bahalkan cabsida leh, raggii yaryaraa ma haysan wax aan ahayn inay raacaan. Ninkii weynaa ayaa la kulmay aabihii Kraven. Waxa uu u sheegay inuu ka xun yahay geerida madaxoodii hore, wuxuuna u ballan qaaday inuu magangeliyo siin doono. Runtii Russell waxa uu rabay inuu iyagana shaqaalaysiiyo, laakiin 2 kelmadood kadib waxa uu dareemay in wax qaldan yihiin. Dilaayadii Rhino ayaa si lama filaan ah u soo muuqday, laakiin nasiib wanaag Russell diyaar ayuu ahaa. Laakiin wiilkiisii yaraa ayaa argagaxay oo miiska hoostiisa galay. Tani aad ayay u niyad jebisay Russell. Waxa uu rabay in wiilkiisu noqdo nin geesi ah oo aan ahayn fulay dhuunta markay xaalad adag timaado. Guuldarradii ayaa si degdeg ah ugu noqotay Rhino. Inkasta oo uu aad u cadhooday, ma uusan la yaabin, waayo Russell ma ahayn nin la dhayalsan karo. Intaa waxaa dheer, mid ka mid ah raggii la socday ayaa tusay cajalad ay ku duuban tahay Kraven oo xabsiga ka baxsanaya. Markii uu ogaaday in ugaarsadaha halyeyga ahi uu yahay wiilkii Russell, Rhino aad ayuu u naxay. Haddii aabe iyo wiil ay heshiiyaan, waxay horseedi doontaa dhiig daata. Waxa uu soo diray dilaa gaar ah. Ninkani waxa uu lahaa awood ka duwan tan dadka caadiga ah. Cid kasta oo uu toos u eego, markiiba wuu suuxin karayay. Waa inaad idisha. Waqtigaas Kraven weli ma ogeyn khatarta soo socota. Si uu walaalkiis ugu sameeyo dhalasho la yaab leh, waxa uu si dhuumasho ah u fuulay dhismaha dhaadheer. Markii uu ka fogaaday dhammaan ilaaladii aabihiis, ugu dambayntii waxa uu arkay walaalkiis. Waxaa soo baxday in habeenkii uu guriga ka baxsaday, walaalkiis uu ka codsaday inuu kaxeeyo, laakiin Kraven wuu diiday. Sanado badan walaalkiis waxa uu la kulmayay canaan joogto ah oo aabihiis uga timaada, taas oo Kraven ka dhigtay inuu dareemo dembi. Inkasta oo aabihiis uu had iyo jeer yarayn jiray, walaalkiis waxa uu had iyo jeer rabay inuu helo aqoonsiga aabihiis. Laakiin Kraven si fiican ayuu u yaqaanay aabihiis. Waxa uu rabay in walaalkiis uu ka fogaado aabahooda, waayo waxa uu ahaa nin aad u xun. Laakiin intii uusan hadalkiisa dhamayn, aabihii ayaa si lama filaan ah u yimid. Kraven ma uusan doonayn inuu kharibo dhalashada walaalkiis, sidaa darteed waxa uu iska dhigay inuu dhoola cadaynayo. Cashadii kadib, Kraven waxa uu aaday beerta oo uu habeenkii oo dhan seexday. Maalintii xigtay waxa uu isku diyaarinayay inuu macasalaameeyo walaalkiis, laakiin waxa uu arkay qolkii oo la wada kharibay, walaalkiisna uu maqan yahay. Waxa kaliya ee uu arkay dhiig sariirta yaal. Si degdeg ah ayuu u aaday balakoonka, waxa uuna arkay walaalkiis oo la afduubayo. Kraven si geesinimo leh ayuu hoos ugu booday. Dhererkani wax dhib ah kuma ahayn, laakiin xoogaa wuu daahay. Afduubayaashii way baxsadeen, laakiin Kraven ma uusan quusan. Waxa uu bilaabay inuu si xawli ah u ordo sida bahal oo kale. Markii uu soo gaabiyey fogaantii u dhaxaysay, Kraven murqihiisu way barareen. Sida dibi oo kale ayuu gaadhigii ku dhacay, kadibna si degdeg ah ayuu korkiisa ugu booday. Waxa uu isku dayay inuu daaqada jabiyo si uu walaalkiis u badbaadiyo, laakiin gaadhigu aad ayuu u dheeraynayay. Kraven oo isku dayaya inuu iska ilaaliyo ayaa la tuuray. Waxa ay walaalkiis geeyeen dekedda, laakiin Kraven ma uusan quusan. Markii uu diyaaraddu kacaysay, waxa uu xadhig ku xidhay. Waxa uu isku dayay inuu xooggiisa u isticmaalo si uu u joojiyo diyaaradda. Markii uu dilaagii hubkiisii soo saaray, waxa uu xadhigii ku xidhay meel si degdeg ah ayuuna isaga ilaaliyey rasaasta. Kadibna waxa uu qaatay bir oo uu cirka u booday. Dilaagii ma uusan helin fursad uu isaga celiyo oo markiiba wuu dhintay. Waqtigaas diyaaraddii ayaa xadhigii ka goysay. Kraven ayaa mar kale booday si uu qabto. Waxaa lagu jiiday badda dhexdeeda 100 mitir. Ugu dambayntii waxa uu ku dhacay meel sabaynaysa, wuxuuna awoodi waayay inuu arko walaalkiis oo la sii kaxaynayo. Kraven ayaa mar kale helay Calypso. Waxa uu rabay inuu ka helo goobta ay ku dhuumanayaan afduubayaasha. Inkasta oo Calypso ay ballan qaaday inay caawin doonto, waxay u baahnayd waqti. Kraven ayaa aaday aabihiis, laakiin waxa uu ogaaday in Russell uu hore u ogaa, afduubayaashuna ay soo direen
farta walaalkiis oo go'an iyaga oo dalbanaya 2 milyan oo madax furasho ah inkasta oo lacagtaasi aysan waxba u ahayn aabihiis haddana isaga oo ah madaxa ugu weyn ee New York haddii uu u hoggaansamo afduubayaasha waxa ay meesha ka saaraysaa awoodiisii intaa waxaa dheer xitaa haddii uu bixiyo lacagta waxa uu aaminsanaa inaysan sii dayn doonin wiilkiisa markii uu miisaamay waxa uu go'aansaday inuusan fulin dalabkooda Kraven markii hore waxa uu lahaa rajo laakiin hadda gebi ahaanba wuu niyad jabay maadaama uu aabihiis go'aansaday inuu ka tago wiilkiisa Kraven waa inuu keligii soo badbaadiyaa nasiib wanaag Calypso way soo caawisay oo waxay ogaatay goobta ay ku dhuumanayaan saaxiibkeed ayaa ogaaday goobta ay ku sugan yihiin afduubayaasha laakiin isla markii Calypso ay baxday saaxiibkeed waxa la kulmay ninkii yaabka lahaa waxa soo baxday in hore loo iibsaday laakiin ninkii hore ma uusan ogeyn in cid kasta oo khiyaamaysa ay la kulmi doonto nacayb daran goobta ay ku dhuumanayaan afduubayaasha waxa ay ku taal buur dusha sare ah laakiin tani dib kuma ahayn Kraven sida shabeel oo kale ayuu si fudud ugu fuulay waxa uuna si degdeg ah u galay goobta dahsoon ilaaladii oo aan weli dareemin ayaa si lama filaan ah mindi loogu dhuftay isaga oo aamusnaan ku dhex maraya ilaalada xitaa ma aysan maqlayn dhawaqiisa inkasta oo ay lahaayeen dareen lixaad leh ma aysan ogaan karin khatarta soo socota laakiin xitaa ugaarsadaha ugu fiican ayaa qalad sameeya taas oo digniin u noqotay cadowga laakiin aad ayay u dhayalsadeen awoodiisa daqiiqada gudahood rasaastii way aamustay hogaamiyihii ayaa isku dayay inuu iska celiyo laakiin Kraven ayaa daaqada ka tuuray waxa uu isku dayay inuu weydiiyo meesha uu walaalkiis joogo laakiin markiiba waxa uu dareemay khatar soo socota gantaal ayaa si degdeg ah u soo duulay Kraven ma uusan helin waqti uu ku dhunto wuxuuna la dhacay afduubayaashii qaraxa ayaa sababay dhulgo si uu u helo macluumaad ku saabsan walaalkiis waxa uu jidkiisa ku ilaaliyay ninkii kale sidee ku ogaatay magacayga yaa isoo diray yaa qaatay walaalkay Hino hadda labadeenaba wuu na dilayaa darbigii ayaa mar kale la qarxiyay Kraven oo aan awoodin inuu dhunto ayaa gebi ahaanba la aasay kadib dilaayadii ayaa raadiyay meydkii Kraven markii ay isku diyaarinayeen inay sawir u diraan madaxooda Kraven ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday gadaashooda labadii dilaa oo aan helin fursad ay isaga celiyaan ayaa markiiba la dilay dhanka kale walaalkiis ayaa loo geeyay Rino laakiin ma uusan damacsanayn inuu dilo waxa uu u naxariistay xaaladiisa waxa uu aaminsanaa in walaalkiis uu had iyo jeer la kulmayay dayacaad aabihiis labadooduna ay isku xaalad ahaayeen si uu u qanciyo walaalkiis waxa uu tusay sirahiisa waxaa soo baxday inuu maray tijaabooyin biology ah oo xag jir ah taas oo ka dhigtay siduu hadda yahay inkasta oo uu lahaa awood aan xad lahayn haddana waxa uu la kulmayay xanuun daran inkasta oo Rino uu neceb yahay xaaladiisa waxa uu fahamsanaa in xooga oo kaliya lagu helo ixtiraam waxa uu rabay in walaalkiis isna la bedelo si ay awood ugu qabsadaan boqortooyada aabahood laakiin waqtigaas waxa uu helay war ah in qof dahsoon uu soo galay dhammaan raggii hubka ayay qaateen Rino ma uusan filayn in Kraven uu si degdeg ah u soo gaaray laakiin markii wiishku furmay waxa uu arkay ninkii yaabka lahaa markii uu indha gashiga iska saaray qof walba wuu suuxay sida ruux oo kale ayuu u dhex maray meesha wuxuuna toos ugu yimid walaalkiis ninkii yaabka lahaa ayaa uga digay Rino inuusan dilin wiilka ilaa uu ka qabto Kraven waayo taasi waa daciifnimadiisa ugu weyn kadib waxa uu soo saaray geed ka yimid Siberia sunta Kraven isticmaalo ayaa laga sameeyaa geedkan hadda haddii ay helaan meesha uu ka baxo si fudud ayay u heli karaan Kraven dhanka kale Kraven oo ka welwelsan badqabka Calypso ayaa geeyay meel uu ku dhunto oo Siberia ku taal waxaa meesha yaal qalab badan oo tijaabo ah iyo geedo kala duwan waxaa soo baxday in Kraven uu baadhayay geedahan si uu u sameeyo dawadii badbaadisay laakiin Calypso ma aysan aqoonin qaacidada ayaydeedna way dhimatay oo sirtaas way luntay dhanka kale ninkii yaabka lahaa iyo Rino ayaa soo gaaday waxay sidoo kale keeneen sun aad u khatar badan qof kasta oo lagu mudo waxaa soo toosaya cabsidiisa ugu weyn kadibna xubnihiisu way burburayaan ugu dambayntiina waxa uu ku dhimanayaa argagax si kastaba ha ahaatee si degdeg ah ayay dhibaato ula kulmeen buuraha waxaa ku dhex dhuumanayay khatar weyn waxaa soo baxay daanyeer weyn kaas oo markiiba baabiyey walaalkiisna wuxuu ku dhex cararay keynta koox yar ayaa loo diray si ay u raadiyaan laakiin waxay galeen dabinkii Kraven isaga oo ka faa'iidaysanaya aqoontiisa keynta waxa uu u dhaqmayay sida ruux oo kale dilaayadu xitaa ma aysan helin fursad ay rasaas ku ridaan oo markiiba way dhinteen kuwii soo hadhayna way argagaxeen laakiin way daahday inay baxsadaan Rino wuu ogaa in raggii uu diray ay dhinteen sidaa darteed waxa uu soo diray diyaarad si ay u duqayso laakiin Kraven oo leh xawaare aan caadi ahayn ayaa si fudud uga dhuuntay gantaalada laakiin markii uu isku diyaarinayay inuu soo laabto si lama filaan ah ayaa sun loogu dhuftay Kraven ayaa markiiba dareemay dawakhaad waxa uu bilaabay inuu arko caarooyin waaweyn oo hareerihiisa ah Kraven waxa uu galay riyooyin cabsi leh ninkii yaabka lahaa ayaa codkiisa ku hadlayay isaga oo isku dayaya inuu jebiyo maskaxdiisa Kraven oo aan kala saari karin xaqiiqada iyo riyada ayuu isku dayay inuu iska celiyo laakiin jidkiisu wuu daciifay markii uu qarka u saarnaa inuu quusto ayaa si lama filaan ah loo soo weeraray ninkii alwaaxa ahaa Kraven difaaciisii wuu jabay markii uu ninkii yaabka lahaa isku diyaarinayay inuu dilo si lama filaan ah ayaa falaad loogu dhuftay waqtigii ugu adkaa Calypso ayaa soo gaaday iyada oo arkaysa Kraven oo dhimanaya Calypso ayaa mar kale soo saartay dawadii dahsoonayd Kravenna ugu dambayntii wuu soo miyirsaday